بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبك وترضاه. waxaan rabaa inaan xoogaa yar wax ka iraahdo arrimihii ka dhacay Soomaaliya shalay mudaaharaadkii wixii kala oo qashqashaadii iyo wixii watay inaan wax ka iraahdaan rabaa walaalayaal. maxaa la dhahaa waddankaas waxaa naga saaran mas'uuliyad weyn dhammaanteena keena ma aragtay qaangaarka ah ilaa iyo keeni duqa ahba markii laga reebo caruurta yaryarka oo korkooda lagu tumanaayo, markii laga reebo iyo kan aan aqliga lahayn oo xanuunsan dhimir ahaan u xanuunsan markii laga reebo wixii ka soo haray oo aqal ah oo qaangaar ah oo oday ah mas'uuliyad weyn baa naga saaran waddankaasi inaan ka aamusnana maalinta qiyaamaha ilaahay waa nagu xisaabtamayaa, waana lagu xisaabinayaa. kii dambi geystay dambiga ilaahay wuu ka jaazinayaa, kii abaal sameeyeyna ilaahay wuu ka abaal marinayaa. marka waxaa la rabaa af iyo adinba in waddankaasi lagu difaaci karo, lagu difaaco, aanan waxba lagaga gaabsanin, laga aamuusin, xaqa la sheego, dulmigana la diido. waxaan ka soo horjeedaa arrinkii shalay ka dhacay muqdisho, mudaaharaadkii qaabdarada badnaa oo sida akhlaaq darada loo soo abaabulay ayaan rabaa inaan maxaa la yiraahdaa aan ka soo horjeedaa. mudaaharaadkaas ma ahayn mudaaharaad silmi ah, mudaaharaad ma ahayn oo shacab weyne ka soo qayb galay ma ahayn. wuxuu ahaa mudaaharaad sharci darro ah, wuxuu ahaa dadweyne aan ahayn muwaadiniin Soomaaliyeed lagu tilmaami karo aan ahayn. intee lagu arkay mudaaharaad qoryo la sito? mudaaharaad haddii uu dhacayo xataa waa in si nabadgelyo ku salaysan iska dhaafee qori inay shacabka soo qaataane waa inaynan mudaaharaadkaasi uu ka madax banaanaadaa. toorey xataa mamnuuc uu ka yahay mudaaharaad, ul in la soo qaato mudaaharaadka mamnuuc uu ka yahay. mudaaharaad silmi haddii la rabo waa la yaqaanaa, qof kastana muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu mudaaharaad silmi uu sameeyaa. laakiin mudaaharaad oo qoryo la sito mudaaharaad ma ah. kaasi waxa waaye dagaal ooga waaye, mudaaharaad uu ku salaysan ma aha si silmi ah. marka waxaan ka soo horjeednaa haddaan nahay shacabka muwaadiniinta ah, shacabka jecel waddankooda, shacabka jecel dadkooda, waxaan si buuxda aan uga soo horjeednaa dhibaatada shalay ka dhacday muqdisho. waxaana dhibaatadaasi geestay dad isku tilmaamay ama lagu magacaabay mucaarad inay yihiin. war mucaaradow, kor iyo hoos adiga kaaga dhammaatay, waa kaaga dhammaatay waddankaas inaad wax ka noqotid mar dambe. shacabkii wanaagga badnaa, qalbiga nadiifka lahaa way ku arkeen muwaadin, laakiin shacabka ku taageersan waa nisbo aad iyo aad u yar, waa nisbo aad iyo aad u yar walaalkaygiyo mucaaradka ah. walaalkaygii baa tahay aniga, waxaan mar walba ku qasbanahay inaan wax kuu sheego si kor iyo si hoos inaan wax kuugu sheego, waa waajib isaaran weeye, waddankaas igaga saaran weeye. maxaa la rabaa ninka siyaasiga ah oo raba inuu shacab iyo waddan xukumaahi qaab waxaa fiican inuu usoo ma aragtaaye waddankiisa oo ma aragtay qaab oo wanaagsan. yacni way jiri jirtay waqti oo maanta shacabka lagu qaldi jiray, way jiri jirtay, laakiin waqtigaasi waa laga soo gudbay. shacabka dhammaantiisa hadda wuxuu noqday shacab bislaaday oo lagu soo kor dagaalamay, oo muddo 30 sano lagu kor dagaalamayay. ma u sii dulqaadan karo labalabadan iyo qaabdaradan hadda meesha ay ka socoto, wax suurtagal ah ma aha. marka waxaan rajaynayaa in laga waantoobo siyaasad xumada, siyaasadda xanuunsan, siyaasadda qallafsan waa mana anfacaysa annaga maanta. waxaan rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa inuu waddankaasi ilaahay idinka qabto,
shartiina ilaahay idinka qabtaan rajayna ahay waddankaasi sharta aa ku wadaan inuu ilaahay idinka qabto ayaan ilaahay ka baryaynaa walaalayaal hadda shacab weynaha Soomaaliyeed aan nahay macnaha marka ani waxaan rabaa 5 daqiiqo aan ugu talagalin inaan sii xeel dheeraado aan ku sii xeel dheeraado waa shacabkii oo wax fahmay iyo madaxdii siyaasadda fiicneed siyaasadda caafimaadka qabtay oo u soo jeestay in shacabkooda iyo waddankoodii wax u qabtaan walaalayaal alxamdulillaah ilaah baa mahad iska leh oo fahamsiiyey siyaasiga caafimaadka qaba inuu muwaadin ilaahay noogu dhigay oo hoggaanka noogu dhiibay ilaah baa mahad iska leh walaalayaal marka siyaasiga wata baasaboorka diblomaasiga ah oo dawladda u yeertay hadduu siyaasi caafimaad qabo uu yahay waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan waddankiisa ugu soo laabta weeye walaalayaal kadib markii waddankaaga ku soo laabatid la imaaw siyaasad caafimaad qabta waddankaagii wax u qabo beri taariikhda ku xusi doontaa taariikhda laba siyaabay dad ku xusi doontaa ya imaa inaa waddankaagii wanaag u qabatay ya imaa waddankaagii inaa halaag iyo hoog iyo khasaaro u keentay labadaasi bay taariikhda xusi doontaa walaalkaygiiyo siyaasiga ah walaalkaygiiyo mucaaradka ah mucaaradnimada si qaldan yaan loo adeegsanin shacabka dabaal ma aha waqti way jiri jirtay shacabka lagu tuman jiray way soo dhamaatay qofkii raba siyaasad caafimaad qabta inuu la yimaado waddanka dib ugu soo laabo haddii adduunka meel walba aa ka joogtid waddanka dib ugu soo laabo leeska yeeli maayo bannaanka inaa ka qaqaylisid haddaa ku qaqaylisidna weligaaba waa daalaysaa siyaasi wixii hore way soo dhammaadeen ilaah baa mahad iskale waxaan rajaynayaa shacab weynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho ku nool ee 3 milyan ah ee ka wada yimaaday waddanka intiisa kala duwan goboladiisa dhan Muqdisho qabiil ma leh Muqdisho qabiil waa ugu dhamaatay qof walba qabiilkiisa goboladuu joogaa goboladaadii ka dagaalan Muqdisho dagaal waa ugu dhamaaday insha Allah tabaaraka wa tacaala ducadeena ilaahay waa aqbalay Muqdisho wixii laga bilaabo dawladdan hadda dhamaanaysa wixii laga bilaabo ilaa iyo fiina wiito waxay ahaanaysaa mid nabdoon waxay ahaanaysaa mid lagu naalooda waxay noqonaysaa muraayadii waddanka insha Allah tabaaraka wa tacaala muraayadii shacabkay noqon doontaa Muqdisho I love you Muqdisho runtii raalina ka noqo wixii kugu dhacay burburkii 30 sano wixii kugu dhacay ka raali noqo insha Allah tabaaraka wa tacaala waxaad heshay Muqdisho siyaasi aqil ah muwaadin ah aqligiisa saliim ka yahay ayaad heshay Muqdisho oo ku diirnaxaya caasimad wanaagsan baad ahayd weligaaba Afrika ayaad hogaamin jirtay insha Allah tacaala waad ku soo laabanaysaa sidii hore ahaan jirtay iyo si ka fiicanba barisimaadkii iyo sida ka fiicneedba way noqon doontaa biidnillaahi kariim waxaan rabaa shacab weynaha meel walba adduunka ka joogo Muqdisho ha loo naxo Muqdisho ha loo diirnaxo waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh